waa mahadsantahay waxaan kala hadalnay guddiga saddex qodob. Qodobka waxaa ka mid darawallada yar ka mid waxaa la qabtay jimcihii subaxdii hore. Waxaa lagu dhex qabtay eelboorka qolada ICE awal hore may soo geli jirin eelboorkay gudaha u soo galeen. Waxaana soo wacay darawallada yar ka mid na soo wacay annagoo magaalada ku jirno. meeshii markaa imaanina waxay ahaayeen 3 gaari oo ICE saddexda gaariga waxaa ku jiray 3 qof. 2 gaari markayna arkay inaan soo galnay aniga iyo yar nala shaqeeyo madaxa unionka xagga darawallada ka caawiyo. markaa soo galnay 2 ka mid way baxeen. kadib waxaa soo haray mid ka mid baabuurtii ICE ee wateen. waxaa dhacday meeshaas arrin aad u falxun ka dhacday. wiilasha ka mid oo darawallada ka mid ayaa waxay sugayeen inuu ka baxo maadaama saa la socoto eelboorka baakinka lagu sugo feerarka. waxay rabeen ku baxo inay ka daba tagaan ee dhaxda ku qabtaan ay kala degaan gaariga sababtoo lambarkiisa midda tragrayna u maleeya marka wuxuu ka mid ahaa dadka dhalinyarada sharcilaanta waddan ku jooga mayoyakaasi ka mid ahaa taasaan jecelnahay waa gartay marka waxaa dhacday marka yarkii asaga ahaa maadaama kol uu soo dhici waayay anagina meesha aan imaanay oo qoladii ICE ku mudaaraadaysana meesha ay imaadeen maadaama uu wacay yarkii darawallada ka caawinayay xagga unionka uu wacay oo dhaay meeshii eelboorkana markii soo galeen aan isku imaano markii arkay inaan baabuurta ka soo degnay waxay ku horgooyeen gaarigiisa waxay ku gooyeen gaariga ay wateen waa gartay kadib waxaa dhacday markii anaga banaanka soo baxnay farbiya aan soo qaadanay waxay noola soo baxeen sunta ka ilmeysiisa dadka waa gartay kadib meesha adig buuqa ka bilaabmay adiga halka wiil bay noqotay inay farayana kala baxaan oo way wateen marka dadkii kale meesha ku jiray waa ka seebgaleen waa gartay waxaad marka meesha aad ka sheegtay inaad booliska wacdeen boolisku maxay idin yiraahdeen markii aad la xiriirteen marka booliska marka hore qorshaha wuxuu ahaa inaan soo geli karin baarkinka qof aan wadanin sticker baa jiro booliska ay bixiyaan eelboorka ay bixiyaan jiro waa gartay muraayadiis hore ay ku dhegan tahay oo lacag la idinka qaado oo lacag aad ku bixisaan aan ku bixinaha lacag badan baan waan ku sheegi doonaa dib aan kaaga sheegi doonaa waa gartay aad marka booliskii markuu imaaday gadaal naga istaagay annagoo qeylinayno sunta noola soo baxeen ICE ninkii ay qaateen booliska markuu imaadana wuxuu noogu abaalguday in gaariga hal saac kadib uu qaadayo haddii aadan baakinka laga qaadan waa towgareynayna waa jiidaynaa idinku yidhahdeen waa towgareynayna waa jiidaynaa marka arrintaasaa shalay markaa keentay in laga hadlo oo aad looga gelgisho midda labaad waxaa ka dhawaajisay salaada dadka iga dambeeya waxaa markhaati oga dhigaya annaga bartaasaan ku tukannaa salaadaan ku tukanna waa meeshaas qabowgaas uu jiro -5 na uu yahay daraad asagoo uu yahay waxaan ku tukanaynaa banaanka kore eelboorka waa u jeediin miidiyaa si fiican u fiiriya shacabkan si fiican u fiiriya waa kuwaasa wadada dhexdeedana waa saliyada aan ku tukanayna barfaa wada qaaday waa kuwaasa si fiican u fiiriya miidiyana waa kuwaas oo tusayna miidiya shacabkuna tusayna oo markhaati gelinayna hadda waxay soo jiitamaysay ilaa hal sano soo jiitamaysay aniga qoladan eelboorka isku haysanay saa la socoto cimilada way isbedelaan waa gartay state xilliga kuleelahana aad bay u daran tahay cimilada xilliga warkeeda iska daa hadda waxaa jiray -5 iyadoo ay tahay waxaa lagu tukanayay Post Road terminal wadada aadaysa lagu tukanayay inaad miidiyaha ka adagto in kala ma garanayo waa gartay sawirada waad haysaa waad soo diri doontaa kolley waan ku soo diri doonaa waa haynaa marka waxaa dhacday marka arrintii marka waxaa naga caawiyey qoladan la dhaho SIU local 26 marka hadda baasha si u soo socotay winterkii baan ugu soo galay marka wiilka lagu qaaday iyo tan hadda eelboorka ka taagan oo xagga salaada meesha banayni waxaa dhacday marka barafa qariyay meel yar waxaa jirto 2 qof xataa ay ku tukan kareen waan ku soo diri doonaa waa arki doontaa dadku waxay tukanayaan musqulo meesha ma jiraan waxaa jiro constructionka caagadaha in arag garanay noocaas ayaa loo 8 xaba marka ayana waxaad garan kartaa biyihii ka soo baxay meesha salaadaadana ansax ma noqonayso markiina micnaha dee uu ka halaabay kuma tukanaysid marka arrintaasaan shalay aan ka hadalnayo aad waxaan uga doodnay arrintaas iyada waa gartay marka guddigii waad la hadasheen inkastoo 2 qodob aad ii sheegtay 3 qodob aan kala hadalnay qodob kale waad ii sheegi doontaa guddigii waad hor fariisateen dhammaanba waa ay dhammaayeen cabashadiinniina waad u gudbiseen sida aad sheegtayna markii ugu horreysay ma ahan maxaad jawaabah waad kala kulanteen marka horta shalay
waynala hadleen aad bay noo dhegaysteen cabashadani awal hore namay dhegaysan jirin oo sidii shalay ay noola hadleen sidii ay noola hadli jireen si ka bedelan ay shalay noola hadleen marka cabashadiina waxbaan wax badan baan ka qabanaynaa ay dhaheen arrinta ayada ama waxaan negotiation nooga socdaa annaga iyo unionka SIU local 26 waa gartay shaqeynayna ay dhaheen sida wax badan u bedeli lahayn midda saddexaadna waxay tahay sida la socoto elborkan annaga waxaan bixinaa sanadkii waxaan bixinaa $5 million waa gartay waa canshuur aan bixinaa sababta feerka qofkii markuu qaaday markuu dhigaba lacag baa waxaa laga qaadaa lacag marka commission baa laga qaadaa stickerkana lacagtiisu waa imisa stickerka idinku dhegan airportka halkii shirkadba waxaa laga qaadaa $25 waa year qofka markii airportka qof uu ka qaado waa $375 qofka markuu dhigana $375 adi lacagta markii la isku geeyo pick up and drop off lacagta waxaa laga qaadaa $5 million ee noqotay a year waase iyaga ay sheegeen wax anaga aan hubno maaha laakiin taa inay ka badan tahay anaga aaminsannahay waa gartay marka waxaa jirta marka lacagtaas anaga elborka inay iyaga noo sameeyaan masaajidka iyo meelaan kuwiisa kaadana iyo cafeteria iyaga ku malihiin waxaan ku leenahay Uber iyo Lyft breakdown ku leenahay marka iyagii baa ku dabban marka Uber iyo Lyft hadda wax anaga wax ka dhacsan lahayn marka waxay noqotay marka elborka anaga dhowr jeer horta sideeda elborka haddaanan lala dagaalamin Uber iyo Lyft lama dagaalamin karo marka waxay noqotay pressureka inaan elborka saarno adiga 3 months ago wayna la fariisteen elborka waxay dhaheen xaq baa u leedihiin waa runtiin waxaan rabnaa inaan ila soo fariisano Uber iyo Lyft nama soo fariisanin marka insha Allah ta'ala rajo fiican aan leenahay annagii Uber iyo Lyft inaan soo fariisano arrinta ICE maxay idinka yiraahdeen marka oo parking lot-ka meesha aad ku sugtaan rararka imaanaya horta sideedaba ICE iyaga meesha kama celin karaan meesha waa federal building laakiin waxay dhaheen negotiation aan ka sameynayna arrintan iyada ah sida la socoto dad badan waxaa jira sharciyo leh oo hadda xataa aan shaqaynin shaqadii ay ka baqeen sababta ICE waxay sameynaysaa harassment handada iyo waxaan loo joogin qofkii marka aan la socoto dadkeena luuqadda 100% kuma fiicno wuxuu ka baqayaa marka problem iyo dhibaato inuu meesha ku galo asli alligeeda marka shalay dooda aad u kulleed keentay in laga hadlo meesha iyada ah waa gartay marka sida la socoto Soomaali waxay tiraahdaa ama buur ah ama buur ku tiirsano qorsheena annaga hadda waxaa faraha la soo galay oo ku jiro SIU local 26 unionka aan ka soo minguurinay inaan musqulaha aan xaq u leenahay cafeteria aan xaq u leenahay baatin fiican oo waasican aan helno waxaan tagnay Chicago tagnay California tagnay Massachusetts tagnay inta way leeyihiin musqulo iyo wax walba ee leeyihiin aan kugu daray aadanu aniga hadda magaaladan aan joogo Indianapolis sidoo kale mudday socotay arrintaasi markii dambe meel lagu weysa qaato iyo meel lagu tukadaba waa ay sameeyeen oo dhismo ah oo qabowga iyo kuleelkaba laga gali karo lagu dukan karana waa ay sameeyeen si fiican waa runta waxa laga yaabaa hadda darawalada waxay organize gareynayaan ani hadda darawala ahay organize aan u ahay unionka waxaan taska saareynaa sidii aan ku geli lahayn union hadda koor waa la socotaa state-kan wixii ka dhacay waxaa la dagaa corporate-kan weyn oo Uber iyo Lyft si fiican arrintii mishaar kordhinta lacagta in la kordhiyo ahayd absolutely marka la dagaalana waxaa dhacday annaga meesha goobjoogka maanan ahayn marka iyada ah xildhibaano ayaa noo doodayay waxaan nugula qatalay qalinkan nugula qatalay maadaama annaga waxay noqotay marka ragga saaxiibadee ah aan ka mid ahaa aad baan ugu hambaliyeenayaa heerkii ay soo gaarsiiyeen darawalada maanta shaqo waa lasoo qabtay marka waxay noqotay in aan unionka annaga aan ka raadsano sidii ay noo difaaci lahayn sababta shaqaalaha way u gooyin iyaga horta adi aragtay waddanka la-aan lama noolaan karo marka annagoo independent contract ah hatta waxa aan haysana ka badan aan heli karno horta annaga aan ka helayna darawalada taas horta waa in la fahansiiyaa si fiican waxaan u baahanay marka hadda California oo kale waa 820,000 drivers oo waxay ku biireen unionka sanadka Boston Massachusetts annaga waa kala soo shaqeynay waa 5,000 waynu boqolkiiba 10 hadda u dhiman adinka darawaladiina maxaa dhantiin marka St. Paul iyo Minneapolis marka la isku daro ama Minnesota aan u dhaxeynaa 15,000 to 20,000 inta u dhaxayso waa gartay 15,000 ilaa 20,000 darawal intaas aan u dhaxeynaa hadda annaga marka
unionka wax badan aa laga heli karaa adigoo independent contract ah hadda sidaa la socoto darawalka 24/7 hours wuxuu saaran yahay gaariga ma haysta sick bay wax la dhaho arrinta dib haddaan ugu laabto ciidamada ICE markii ay parking lot ka imaadeen qofka ma intay u imaadaan ay leeyihiin sharcigaada na tus mase dad gaar ahay bartilmaameedsanayeen oo ay soo aadeen kulligood cid walba way leeyihiin horta qofka bini'aadamka ah darawallada cabsida waxaa keenaysa waxay tahay nimankan wejigaa u xiran u soo socda wuu ku soo aadayaa qofku yahayna ma garanaysa marka ma dad gaar ahay bartilmaameedsanayeen mise qof kastay sharcigiisa weydiinayeen maadaama madaxweynaha uu dhahay soomaalidii hadda soomaalida keliya target ah statekan hadda aan ku jirno ama anaga aan joogno waa soomaali waa gartay waa ka dhibaatada taagan waa taas markay baakinka imaadeen ma soomaali oo keliya ay bartilmaameedsanayeen mise dadka baakinka joogo ama cadaan ama madowle ama latino le qof kasto sharcigaadana tus ayay dhahayeen mise dad gaara oo ay tracking ku samaynayeen ay bartilmaameedsanayeen soomaalida keliya bartilmaameedkooda iyaga yarkay wadeen tos u aadeen soomaaliya waxa waa gartay marka waxaad ii sheegtay arrinta salaada iyo arrinta ICE qodobka saddexaad oo aad kala hadasheen mas'uuliyiinta airportka muxuu ahaa waxaan kaloo kala hadalnay sida la socotaan kuu sheegay hadda in ayna soo horfariisiyaan Uber iyo Lyft taanu ina hadduu Allah idmo waxay noo ballan qaadeen in ay meeshaas ay hagaajin doonaan cabashadeena ay wax ka qaban doonaan